kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qisadii jacayl ee dhaxmartay mahadii maanta qaybteedii shanaad balse intaan u guda galin qisada fadlan like inoo saar muuqaalka waxba kaama dhibayso balse anaga laagtaasi wax weyn ayay inoo taraysaa siina share garay si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale qaybta shanaad ee qisada jacayl ee Maandeeq iyo Mahad waxa ay inooga bilaabanaysaa maanta. Maandeeq waxa ay fadhidaa banaanka welina waxa maankeeda ka guuxayo hadaladiisii qurxoona. Laabteedana waxa ku sawiran dhool cadeyntiisii ilmadu kama istaagayso dadkii meesha joogayna waana ay la dul taagan yihiin iyo duco ay u duceynayaan Mahad. muddo saacado ah kadib waxa soo baxay dhakhtarkii hawsha Mahad gacanta ku hayay iyada oo naxsan ayayna ka soo horbooday waxa ayna ku tiri dhakhtar soo yahay xaaladiisa hadda wuxuuna ugu jawaabay waa uu iska fiican yahay balse jug culus ayaa soo gaartay dhiig badanna waa uu ka baxay waxaana loo baahan yahay qof dhiigiisu oo balaas yahay si dhiig loogu shubo aniga iga shub ayay la soo booday balse nasiib xumo isku dhiig ma aysan noqonin isla markiiba waxa ay si argagax ku jiro u wacday wiil ay qaraabo dhow ahaayeen oo ay u sheegtay in gabar ay saaxiibo yihiin walaalkeeda uu shil galay wiilkii ayaana dhiig looga shubay Mahad wuu soo ladnaaday wuxuuna indhaha kala qaaday gacalsidiisii Maandeeq oo dul taagan oo wajigeedu murugo badan ka muuqato ma uusan ogeyn in uu shil galay balse waxa miyir iyo wax garasho ugu dambeysay iyada oo dhoola cadeynayso oo gacanta u taagayso oo ku leh habeen wanaagsan xabiibi haddana wuxuu indhaha kala qaaday iyada oo dul taagan oo murugo fara badan ay ka muuqato wuxuu is arkay isaga oo sariir saaran isla markaana xanuun dareemayo hadalkuna uu dhibayo waxaana loo sheegay in uu shil galay balse Allah uu ka badbaadiyay Maandeeq oo hadda sidii hore dhaanto naxdintiina ka roonaatay ayaa banaanka u baxday waxayna u soo iibisay cabitaan fara badan oo nafaqada jirka soo celiya haweenkaasi oo dhan waa ay la joogtay mar inta ay qoorta qabato ayay caano afku saaraysay marna dhakhtarka ayay ugu yeeraysay marba wuxuu u baahan yahay ayay u qabanaysay iyadoo aad moodo marka uu dhaho in ay la damqanayso siday ugu turayso kursiga agtiisa ah siday ugu fadhiday ayuu waagi ugu baryay iyadoo aan mar qura indhaha is saarin maalin iyo habeen waa ay dul taagnayd waa ayna u adeegaysay ilaa ay dadka qaar ay u maleeyeen in ay ka mid tahay kalkaaliyaasha isbitaalka ka shaqeeya maalintii ayay yaro seexataa habeenkii oo dhanna waa ay la joogtaa si ay wehel ugu noqoto xaafadeediina waxay ugu sheekaysay inay caawinayso gabar saaxiibteed ah oo walaalkeed shil galay maalmo kadib Mahad wuu soo bogsaday dhaqaatiirtiina waxay u sheegeen in hospitaalka laga bixiyo maadaama uu hadda bogsaday oo hadda daryeel iyo xanaaneyn u baahan yahay waxaana la iskugu xisaabiyay daryeelkii iyo daawooyinkii la siiyay waxaana lagu dhahay lacagtaas bixi oo wiilka xaafadda geey Mahad wuxuu ka dhashay qoys danyar ah oo aan weligood helin lacagtaasi laga rabo waxayna degan yihiin meel ka baxsan magaalada oo tuulo ah waxa hadda la joogo oo ehel u ah Maandeeq oo kaliya Maandeeq tala ku cadaatay meel ay ugu tagi kartana ma jirto waa gunnimo qof aad adiga u tahay wehel in aad ka tagto daryeelkiisana waa ay ku dadaashay haddana waxaa laga rabaa lacag badan oo ayadu haynin qof kale oo bixinayana aysan jirin ugu dambeyntii waxay go'aansatay inay iibiso dahabkii ay lahayd ee saduuqa hooyadeed ugu jiray si ay ugu bixiso lacagta loo haysto jaceylkeeda waa ay ka walwalsan tahay nin aanan qabin mustaqbalkana wuxuu noqon doonaa aysan war u haynin in ay u iibiso dahabkeeda haddana waxa ay nafteeda ku dhiirigelinaysaa dartaa ayuu u dhaawacmay waana miskiin aad caawinayso ilaah ayaana ku abaalgudi doonee bal ilaah dartiis wax ugu qabo waxayna isku qancisay in ay dahabka qayb ka mid ah iibiso qaybna ay haysato si ay xaafadda u ogaan Maandeeq waxay aaday suuqii dahabka lagu iibinayay balse nasiib xumo qiimihii ay ku rabtay ee isbitaalka uu ka rabay waa uu u gaari waayay dahabkii gabar saaxiibteed ah ayay lacag deyn ah ka codsatay iyadiina waa ay ka cudur daaratay oo waxba kama helin halka waxa inooga qaybtii shanaad ee qisada jacayl ee dhaxmartay Mahad iyo Maandeeq hadduu Rabbi raali ka noqdo la soco qaybta xigta haddii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka laag inoo saar muuqaalka lana sii wadaag saaxiibadaada